madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada qaranka ugu gaar yeelay casho sharaftan oo uu ku maamusay diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada ka howlgala safaaradda dawladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka socday hay'adaha kala duwan ee dawladda Turkiga oo dalka u yimaaday ka qaybgalka maamuuska dib u soo nooleynta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee 10 sano jirsaday iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo muwaadiniin ka socda dalka Turkiga oo Muqdisho u jooga howlo kala duwan iyo caawinta dadkeena abaalka aan tirmeyn ee Turkigu ku caawiyay shacabkeena waqtiga adkaa ee la soo maray iyo garab istaagooda hagar la'aan ay uga qayb qaateen dadaalka dib u dhiska tiirarka dhaqaalaha dalka taageeradooda dhismaha hay'adaha dawladda waxbarashada caafimaadka ammaanka iyo dugaalka diblomaasiyadeed ee u fidiyeen dawladdeena ayaa ah tilmaanta dhabta ah ee ka turjumaysa xiriirka qotada dheer ee walaalnimo ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya guulaha iyo wax wada qabsiga labada dal ay gaareen 10 sano la soo dhaafay waxa aad looga xusaa arrimaha siyaasadda iyo dhismaha ciidamada qalabka sida laakiin waxa jirta dhaqan ahaan xitaa isdhexgalka bulshada ee labada dal inuu aad u kordhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo khudbad u jeediyay diblomaasiyiinta mas'uuliyiinta iyo muwaadiniinta Turkiga ee munaasabadan ka qayb galay ayaa tilmaamay in xiriirka labada dal ka dhaxeeya uu ku dhisan yahay is-ixtiraam iyo isgarab istaag. Excellencies, ladies and gentlemen, Somali-Turkish relations are truly historic, dating back to the Ottoman period. mudanayaal iyo marwooyin xiriirka Soomaaliya iyo Turkigu waa mid soo jireen ah oo ku siman xilligii boqortooyadii Cusmaaniyiinta maanta xiriirkeena diblomaasiyadeed ee dhidibada adagi waxa uu labadeena dawladood u abuuray fursado badan oo ah dhinacyada ganacsiga amniga kaalmada bini'aadanimada iyo isdhexgalka labadeena shacab xiriirkeenu waxa uu Soomaaliya u suurtageliyay in diyaaradda Turkish Airlines ay dalka ku timaado duulimaadyo caalami ah taasi oo noo fududeysay inaan ku xirnaano dunida inteeda kale taageerada walaalaheena Turkigu ayna siiyaan waxa ay suurtagelisay inaan dib u dhis ballaaran ku sameeyno dhinacyada caafimaadka ammaanka waxbarashada dhaqaalaha sidoo kale waxa uu xiriirkeena wanaagsan suurtageliyay inaanu dib u dhis ballaaran iyo maalgashi ku sameeyno kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka garoonka aadan cadde iyo dekedda Muqdisho madaxweyne Farmaajo waxa uu dul istaagay caqabadaha guud ee ay wajahayaan labada dal oo ay kamid yihiin isbeddelka cimilada caqabadaha ka dhashay cudurka COVID-19 iyo sida muhiimka ay u tahay in si degdeg ah labada dalba ay uga soo kabtaan dhaqaale xumida uu abuuray COVID-19 alongside the common opportunities I have already mentioned kasako fursadaha guud ee aan hore u sheegay waxaa jira caqabado guud oo ay wajahayaan Soomaaliya iyo Turkiguba caqabadahaasi oo ay kamid yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay dunida ayna muhiim tahay in si dhaqso ah looga soo kabto dhankiisa safiirka dawladda ee walaalaha nahay ee Turkiga u jooga dalkeena ambassador Maxmed Yilmaz oo halkan ka hadlayo waxa uu tilmaamay in Soomaaliya iyo Turkiga uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo ku dhisan wax wada qabsi iyo walaalnimo waxa uu na ballan qaaday in ka Turki ahaan ay horumari doonaan xiriirka labada dal ay wadaagaan. Cooperation between Turkey and Somalia has always reached new heights in the last decade and turned into excellent cooperation in both bilateral and multilateral platforms. madaxweyne Farmaajo ayaa dawladda iyo shacabka Turkiga uga tacsiyay muwaadiniinta ku naf waayay iyo kuwa ku waxyeeloobay dabka ka kacay kaymaha dalka Turkiga. munaasabadani waxa ay qayb ka ahayd munaasabado loogu dabaaldegayay laguna maamuusayay 10 jirsiga dib u soo nooleynta xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya oo soo bilowday sanadii 2011 xilliga oo booqasho taariikhi ah oo dalkeena ku yimaaday ra'iisul wasaaraha xilliga ee dalka Turkiga haddana ah madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waxaana munaasabadan qayb ka mid ah ay maanta ku qabsoontay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed في الصومالية.